shirka maanta wuxuu ku saabsanahay diiwaangelinta dadka Mandera joogi oo lagu diiwaangelina arrin ku saabsan nadaafad oo biyo iyo nadaafada guud waxaan meesha u soo yeernay 70 qof waxaana rabnay in ay yani waxna la qabtaan dawladda county wasaaradda caafimaadka ahaan muhiimadda meesha lagu soo sheegana waxa way hadda soo kooba waxa way 1 oo biyo daawo lagu dara 2 nadaafada guud oo lagu xoojiyo inkastoo municipality laftigeeda ay shaqo fiican ay haysa 3 farxaal nimol bicidiisi uu ku sii hagaaji oo sidii biyo yani min gacantooda ay si farxashaan tan farana waxa way raashinka iyo nadaafada guud hadana inay si xoojiyaan wasaqda meel ay ku shubaan oo banaanka lagu soo shubo taas muhiimadda Mandera roob haduu dhaca iskeeda waxa ka dalaa cashuur anaka safartan diyaar u minay in shubana soo gaar maadaama kolleer uu taakab laga sii taakab laga sheegay oo hadana xilli rooban ku dhex jirno roobna si weynaando waxaan ku tala jirnaa in ilaahay duumay u dhihin aan nadaafad guud aan si xoojina dadkana aan si baraarujino biyana la daaweeyo nadaafad guud wax ka tan si qabta intaas ay ku saabsanay naftigiisa waxaan u sii keenay asagana magaalo xaq qaybta nadaafada iyo wasaqaadis inaad ka sii jawaan wixii kulli waa laga hadlay nin walbana diyaar u yahay culimadana waxay go'aansadeen masaajid kastaba in ay ka faafiyaan wixii maanta meesha lagu hadlay chief-iftana location koodi iyo sub location kulli ay ka sheegaan anaka waxaan u maleeynaa wasaaradda caafimaadku way take the lead anaka hogaaminayna barnaamijkan ilaa roobkan uu ka dhamakasii dhamaana arrinta waa sii soconay marka waa qaybta nadaafada qaybta ka hortaga wasaaradda caafimaadka ee ku shaqeynayna waxaa magaalada ku yaala 16 weel oo dad private ama commercial ay iska leeyihiin 16 kaas maalin kasta daawo lagu daraa biyooda waa ku bood kasta daawo lagu sii shubaa oo biyo ay qaadi dameer kastaba iyadana waxaa lagu daraa daawo aquatabl ah oo biicda ay ku geeyeen hatta daawad inta la gaarin first and foremost waxaan ilaalinaynaa nadaafadeeda biyo fuustada nadiif miyiin botabuusiga nadiif ma yahay markaas daawo lagu sii daraa qoys kastana waa sii aadayna dad waxaa jir anaka aan qori doono oo cid si dal wareegana oo arrin nadaafad iyo biyaha iyo farxaal kulli ka sii hadli doon waxaan sheegaynaa xilli roob lagu dhex jira biyo ay cabaan nadaafada guud nadaafada caruurtooda nadaafada raashin wax kasta fiiriya tixsina waa jira tixsiya liiska ilaali raashinkana asagoo qaboob yaa la cunay asagoo kul hal la cuno qudaar marka suuq ka soo gadana hal la dhaqo taasaan ugu farxalna loo lagu dadaa intaasna ugu baraarujinaa dadweynaha